waxaa jirtay gabar qurux badan oo maaragtay ay u doonayd ninka la yidhaha qaasim khilaa waa la yidhahdaa gabadha gabarna ay isku xaafad ahaayeenoo yaraantooda ay isjeclaayeen ninka la yidhaha qaasim ayuu doontay wuxuu rabay inuu kaxaysto turkiga geysto meesha ku aqalgaluu rabay ninkan ma gabar kale doonto raadsado tii uu yimid wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan ku guursado see ii guursanay tiri ani walaalkaaba isoo doontee walaalkay wuxuu yidhi kiisas waaweynaa lagu helay 17 sana xabsi loo geliyey oo weliba in loogu sii daro laga yaabo 20 sano xirnaado adiga marka 20 sano hadda dhowr iyo 20 sano jirtaa waaba duqoobaysaa maxaa marka wuxuu yidhi anaa marka ka gaarsiina waa shaqadii uu qaban lahaa anaa kala tuuraay anigana waa taajir isnacay waanahay waa ujeedaa seewaay hanti intaasaan ku siinayaa waxaasaan kuu iibinayaa dahab intaasaan ku siinayaa guri keligaa baan ku siinayaa qoyskaaga intaasaan siinayaa waa gabadhii maalmay soo fakartay waxay tiri okay waayahay ninkii gabadhii u guursaday kii waa xiran yahay ogaad ninkan gabadhii u guursaday يا حاج يحيى اللي لا مركي حوغا باشو سوكا دو حاج نما هذا الحاج كتير حتى والغو مغعابا بوقته حاج يحيى اللي حاج يحيى بقارده افرن بابورته سو دغيسا لابتا ايابسا ناكتي ويل دش waxa loo bixiyay isxaaq wiil kale dhashay waxa loo bixiyay jaabir iyo isxaaq way weynaadeen way koreen jaabir wuxuu dalbaday inuu wax ku soo barto wadamada reer galbeedka mareykanka rabaa uu yiri aniga inaan meesha wax ku barto aabo oo maartay meeshaas wax barashadeedu halka tagto war meesha rabtid aad u yiri lacag aabaha ku hayo waa lacag laga xaday laga dhacay ninkii oo asagoo darooga ku keenay lacagta ku raaxayso yiraadeero baasha rabtid kala dhac aabaha lacag ku haye kii kale wax barasho ma aadaysa leer ma yiraani wax barasho barro kad marka muxuu noqday daroogiistu noqday daroogada iyo waxa kan iyo qamriga iyo kalaabyada iyo kama baxo isxaaqa mid kale leeyahay hawshi way socotay tikii jaabir ahaa wuxuu ku guursaday mareykanka gabar Mareykan oo asalkeed Lubnaaniyad yahay ayuu meesha ku guursaday gabadhii oo keenay aroos waxa loo dhigay ma aragtay aroos noocaana wali Dimashq ma ka dhacay la dhahayo u dhigay odaga aabihiisa waa soo toostay ninkan gabadhii amaartay sharci u dalabtay Mareykan oo soo guuray jaabirki isxaaqina waa alkulist labadaas bas u dhashay gabadhii uu dhacay gabadha xataa waa la beerlaaqaysto waxa la beesha waa la kala dhacaya niman Suuriya ka niman dhacay ba caadi baa niman waxa dhici doona marka ilaahay amarkiis ninkii Yaxya ahaa iyo xaaskiisa cudur aan weligiis la arag ayaa ku dhacay cudur la yaab laha ku dhacay jarmalka la tagay lacag la haystay jarmalka tag ingiriiska tag daawo u tag wax laga qaban karo male naagta sidoo kale iyagoo nool ajirkoodii maartay uu marbaacad soo go'aya wax la yaab laha ku dhacay ilaa markii dambe isbitaalku ay yiraahdeen meel gooni ah lagu haynaa dadkan hadii kale cudurka haya dadka kale qaadsiinayaan dhaqaatiirta u galaysa xataa iyaga dhan waa isdaboolayaan alaabtaas lagu daweynaa nimankan dawo ma laha leeyahay maalin maalmaha kamida marka iyagoo isbitaalka ku jira waxa soo booqday nin la yiraahdo Saalax marka wuxuu la dhashay gabadhu la dhashay ninkan marka Yaxya ah waa seedihiis Saalax marka waxba lagu wada hadlay ninka muraayada u dhaxaysa maartay mikrofon yar oo ku hadlay dhigta gashanaysa kula hadlaysa meesha ninku waa nin lacag leh meel VIP oo isbitaalka meel kamid oo qatar oo isaga jira cudurkaas kaga dhacay ma ahan lacag ma la xisaabiyo meesha waa iskaga jira kii Mareykan oo iska jira wax ilmihiisa ka waraay mala midna waa alkulist duurku isaga jira Saalixi marka wuxuu yiri warqad iyo qalin soo dhiib Saalax uu yaab warqadii qalin oo soo qabtay dhaqaatiirtii alaabtooda inta gashtay ninkii loo dhiibay
warqadii qalinkii wuxuu ku qoray wuxuu yidhi dhegayso saalaxow hantidan aan haysto waxaan ka dhacay walaalkay qaasim fadlan waxaa samaysaa qaasim u tag raadi xilligii waxaa la joogaa uu xabsiga ka soo bixi lahaa meelahaas iyo waaba inta la soo daa meelihiisu iska joogaa marka wuu soo dhammaysto xabsigii marka meesha istanbuula ka raadi lacagtiisii aan ku feesteeyey cudurkaas aniga hadda ma ka soo kacay dhaqaatiirta waa tegaysaa ay dheen waxyar kadib marka ninkaa ha i cafiyo lacagtiisana ha u yimaado isagaa iska leh ha qaato ninkii saalax ahaa markuu warqadii akhriyey ninkii fiiro kale u laabtay dibuu u fiiriyey waxa filib maa kuu daarano filibaadtii baaratay oo la yaab kaleed ameerikaanka oo khatarta ayadoo cabsidaa u daarmad ninkii saalaxa warqadiiu soo qaaday wuu soo tegey gurigiisu yimid wiil yaroo marka waxaa u joogaa kuray ah oo la yidhaahdo anas iyo xaaskiisuu leeyahay wiilkiisi marka waa dhowr iyo adiga waa iska 10 iyo dhowr sano jiraa markaas xaaskiisu waxay ku tiri waadaa u murugaysatay saalaxow maxaa ku helay ayadii iyo wiilkii wada fadhiyo sheekadii u sheegay wuxuu yidhi arrintaasaa soo maqlay maanta xaaskii waa yaabtay wiilkii yaraa laftirkiisu waa yaabay arrinkaasaa laga weydiisto yidhi maxaa sameeyaa anigana hadda inta baxo istanbul nin raadis iyo waxaas iyo waqti umaaye maxaa sameynaa markaas xaaska waxay tiri waxaa samaynaynaa wiilkiisa waxba ha ka qarinin midka jooga alkulistaha u sheeg asaga adeerkiisa ha raadiyo ha u sheego dardaaranka abiis saalax waa soo baxa kiiu raadiyey isxaaqi wuxuu ku yidhi arrintaanaa jirta aabbaha warqadaasuu ii dhiibay anigana waxaan rabaa markaad diyaar noqoto warqadii inaa inta kuu dhiibo aad u geyso adeerkaa raadisid qaasim istanbuul aadid ninkii wuu yaabay isaaqii laftirkiisaa yaaban hantidii lagu baashaanay wixii dhan ninkaa loo geynaa ninkaana waa alkuliista kale baasaa yeelaya ninkii wuxuu yidhi bal waayahay walaalkay jaabirna waa la hadlaa yidhi bal waa u sheegaa asaga hadduu aadi karo asagaa iga fudud iyo haddaan aniga aadi karo waa ka tashanayna waa kugu soo warcelinaynaa u dhaca adeer haye waxa waaye marka abtigiis waaye abti haye waaye jaabirkii uu la hadlay teleefon u diray wuxuu yidhi jaabir sheekadaanaa jirta waar ma dhici kartuu yidhi sawa hantideena seeo qaasim loo siinaa waxaas wax dhici kara baa ee anaa tikid soo goosana waa imaana waa tashanaynaa yidhi haye waaye waa la yimid way tashadeen labadooda jaabirku markuu iska caadi midka gaangiistarka ah waa midkan alkulistaha isxaaqa la leeyahy wuxuu yidhi dhegaysano odayga aabbaheena ah iyo duqdaba waa khaarijinaynaa yidhi waaba socdaan soo lama dhihin hasaysan noo daahirin waa la khaarijinaa haye odagan abtigeennaa saalax la leeyahayna asagana waa khaarijinaynaa yidhi haye markuu odaga dhinto dee yaa dhaxlaaya ani adisoo ma ahaa waxa hanti noo yaalaan kala goosanayna adigana maraykankaaga waxaagu qaado anigana waxay intaan ku feesteena yidhi jaabirkii okay yidhi yaa nagala shaqeynaa marka arikan marka waxaa jira mid alkuliista kale ah oo dhaqaatiirta iyo waxa kana ku jira marmarna qamri iska cabo oo yuusuf la yidhaahdo yuusufku marka waa kalkaaliye habeenkiina qamrigii wixiisu iska cabaa maalinkiina xoogaa maarata istaalku ka shaqeeya yuusufa aanu arrinka soo gelinaynaa yuusufkii waceen yuusufki waxay yidhahdeen dhegayso saaxiibo lacag intaa rabtaa ku siinaynaa habartan iyo odagan na dhalay khaariji marka waxay yidhahdeen habartan iyo odagan na dhaafi haye marka hawshaas qabay dheh habartii odagii ninkan waxbuu isugu habeeyey kolley waa khaarijiyey waa dhinteenaan yidhi waa dhinteen aabbahay hooyaday waa wareey waa labadoodii oohin ah waa faalsa wax ka jira male yuusufkii lacagaa loo ballan qaaday lacagtiisu duubtay asagana yaa u haray marka sheekada waxay isleeyihiin waxa og keliya
saalax abtigood abtigii naagtiisii wiilkiisa u sheegay laakiin ma oga ayaga waxay moodaan inuu abtiga lagu sir qarsaday oo abtigu basaayo abtigii waxay warqadii soo qaad abti guriga noogu imaw annaga ka tashanayna qofkii bixi lahaa marka warqadiina na tus waa la qaadayaa abtigii waa soo baxay warqadii soo qaatay guriga markuu yimid abtigii waa khaarijiyeen meydkiisay qaadeen meel ku aaseen abtigii waa la waayay nimankan guryahoodii kala gateen wuxuudii la kala tuurtay haaf iyo haafaa la qaatay ninkii jaabir ahaa wixii soo duubtay waa tegey kii alkulistiyaa soo haray alkulistihii yuu ku lamaanan yahay alkuliste kale oo yuusuf la yidhaahdo yuusufka lacagtii horaa ku yaraatay wuxuu isiri ninkan baad ka qaad wuxuu oryaa waa ku sheegaa inaa adiga disheen ninkii miskiinka ahaa saalex iyo wixii dhan iyo waxa dhan filinkiina dhana ogaa haddii kale aniga inaan wax isiisaar maxaan ku siinaa yidhi guri dabaqa oo weyn oo villaa oo isku dhex dhacay oo isku habaysan oo odagii yaxya iyo xaasku deganaa jireen uu wuxuu dhahay guriga anaa qaadana ani gurigiisa u qaadana maye u dhahay wallaahi guriga haddaada isiin baxaraa ku jirtaanu yidhi adiga walaalka waa idiin dhammaatay ninkaa waa baxay gurigii ku wareejiyey asagana qamrigiis inta lacaga u soo hartay hotel meelahaas inta iska degay oo ku feesteeya wixiis wiilkii anas ahaa marka yaraa kuraygii iyo hooyadii waxay raadinayaan saalex wiilkii aabbihiisuu raadinaa islaantina ninkeeday raadinaysaa waa la raadiyey ninkii wiilkii wuxuu u yimid isxaaq wuxuu ku yidhi dhagayso aabbahay markii ugu dambaysay wuxuu noo sheegay inuu adigu soo aadayay iyo jaabir markaasaa noogu dambaysay anaga aabbaha waa noo yimid arrinta tacsidaan ka hadalna waana naga tegay kadibna ma arkin aabbaha ma aniga aan daba socdaa maxaa shaqaha ku leh anas wax kasta waa la weydiiyey salaantii nag wiilkii waxba ma lahay maxaa la sameeya wax la sameey male anaskii kurayga ahaa waa soo weynaaday dhowr sano kadib dee nin waxoogaa weynu noqday hooyo wuxuu yidhi waa baxayaa xaggee aadaysaa turkigaan tegayaa odagii qaasimaa raadinayo dardaarankii aan u sheegayaa iyo wixii dhacay iyo waxaa dhacay iyo aabbahay in la la'yahay arrintaana aan uga shakisanahay inay iyagu ka dambeeyeen wixii oo dhan aan soo sheegaa oo kaya tire wiilkii waa soo baxayay suuriya iyo turki gaarile laysku raacaa xuduudkii ka soo gudbay meeshii raadi ninkii nin qaasim la yidhaahdo suuriyaana meeshii ugu wardambaysay raadkiisii si u raadinay muddo 3 bilooda ayuu raadiska qaasim ku jiray qaasim oo guri meel iska maskiina degan oo meel oo cuntada iyo lagu kabaabka iyo lagu sameeyo suuriyaanka ay sameeyaan cuntadaas oo maaragtay ayuu meeshii ugu tegay markaasuu yidhi qaasim ay fiicanta fiican soo dhow ahlan wasahlan adiga suuriyaan ma tahay suuriyaan ahaa bas markaa shaqada dhammeys arkeenahay waa ballameen waa la sark wuxuu yiri aniga waxa la yiraahdaa anas muxuu yahay anas waxa waaye gabadhii adiga ku doonayd eedaday ah yiri aniga aabbahay saalax oo gabadha la dhashayna waa la la'yahay dardaarankuna saasuu ahaa marka ani maxaan ka qaban karaa warniyo inaan caawisaan rabnaa suuriya imaatid hantidii iyo waxa kan lagu dheeray aabbahan adliisa xataa nala raadis suu u bariyaa wiilku wiil caqli badan waay anaska wuu soo kaciyey way soo raaceen qaasim wuu soo baxay qaasim gurigii waxaa loo tilmaamay yaxyu deganaa gurigii nin yuusuf liiraa ku feesteeyey albaabkii u furay yuusuf nin leeraa ka soo baxay markaasuu yidhaahay assalaamu calaykum wacalaykum salaam gurigii yaxya soo maaha yaxyaa lahaan jiro laakiin anaa gatay adiga maxaa yidhi aniga yuusufaa la yidhahdaa oo wiilkii isxaaq ahaa uu dhalay iyo aawe wiilkii isxaaq meeshaasuu joogaa wuu yaabeen wuu soo baxay qaasimka isxaaqii u yimid waa adeerkiis mogta adeeru yahay isxaaq أول مرة يسارك نوايا سو إسلامتي سيد الله بالغيس المها الله دلي وحاشو ربي بارك بشان أسحاق ما دي قوي أو يحيى دلي
هاي هذه وراك وحال ذكر ربا العكتي دينا سوء علسين أبينا دردارن كيسوا مقاشين سوما ها نكي صالح أنا أو هذا صالح شغلكم ملين أبينا أنا إذا وحكر عي كلنا شغلكم ملين أبينا العكتي أنا وقال أنتي أنا أسأل واكل طورا كان meel wax laga bilaabay mala shaqadiina nimankii inuu laga soo saaraa rabaa ninkan qaasima uu soo baxay ninaysi aqoon jireen oo booliiska qaybta CID-da baaritaanka u tagay wuxuu yiri naadeer arrintaana jirta wiilkii Anas ahaano arrintiisu iyo xaaskii inay Saalax raadinayaan wax kalena Saalax kuma maqna nimanka kanu waxay u maleeyaan Saalax kaliya inuu sheekada og yahay laakiin Saalax wiilkii uu sheegay leeyahay laakiin marka carabtan de manaxayaan waxa la soo qabtay Isxaaqi iyo Yuusufki labadaba waa la soo qabtay booliisku waxay soo baareen Yuusufka soo gurigan ku helay dadkii markii xaafadda la weydiiyay ninkan alkoolisti aayadeen waxoogaga yarka uu ka soo helay isbitaalka ma ku filnaa asagii reerkiisa iyo waxna oo qamriguna waa cabi jiray waaba la yaabneen dheen lacagta guriga intaas leeg uu ku gatay iyo ninka waaba taajir gaariga uu ku socdo market lacagta meel uu ka keenay ma naqaaneen وفهمنا بوليسكو مركا وانمان آد اكتفوا وحالا سوقبت مركا إسحاقي يوسف كي لوضا والا سوحر سوريان كدين منا حيان بحال كورنتالغو قبنا حنيها لغاية قبنا مركا سا وحي حصوص دي لبات السنة كور اللودي وحي حتى هالمرة سو حصوصري ماركي نبكا وحالي ردقيست ماشا صالح جيروكو شيغا لابو ninka kan soo lacagta ku helay uu gurigan oo aad ugu wareejisayna sheega liroya dacnaa keeneen nin walba meel inta lagu xareeyay alla soo karkariyay mid walba isagoo dhididka ka socda ayuu qaylo aflabadeed qayli saaray wax u dhacay wixii oo dhan sheegay okay wixii oo dhan sheegay markaas waxay Saalax waxa dilay Jaabir iyo Isxaaq anigana waa joogu dhahay markay dilayeen waxaan ka caawiyay Yuusufka meeshii lagu aasay annay waxaan ka soo takhalusay Yuusufka habartii oday aakhira u socdaa si sabooti kula kuwaas si diray anigana nimankii marka xogihii dhan inta laga aruuriyay laga qoray waa la soo kaxay maxkamadii algii maxkamadii markii la geeyay saddexdoodii marka waa la xukumay midka Jaabir laakiin waa maqan yahay ogow Jaabir xukunkiisa isagoo maqana lagu ridaa maalinkii uu yimaado Suuriya ayaa lagu fulinaa asaas waay macnaha xiriir kama dhaxay Suuriya iyo Mareykan in la soo celiyo dadka maartay dambiilayaasha ay waxaas kama dhaxayaan kaas marka saas ku baxsaday labadan dil toogasha lagu xukumay wixii hanti oo markaas meesha yaalay wax badan awrayso laakiin waa ku feestay wixii shakana waa ku feestay gurigii iyo baabuur yar yar iyo waxba la helay wixiina waxa lagu wareejiyay Qaasim maadaama isaga markii hore laga soo dhacay Qaasim wixii gacanta loo geliyay labadii ninna waa la toogtay kii kale maartay Jaabirkina isagoo maqan ay maxkamaddu dil toogasha ku xukuntay maalinkii fursad lagu helo uu yimaado ayaa maartay sharciyada iyo maxkamadu qaban doonaan marka saasa marka isagana amaartay ninkii lagu xukumay wixii marka hanti yaalay ninkaan lagu wareejiyay ninkii Qaasim aha marka almaalul xaraam meeshu ka imaanay moogtay wuxuu dhahay horta waxa kan dhibaatadan dhan waxa keenay maalkan waa xaraanta oo darooga iyo qashin aan markii hore ka shaqeeyay haddana aniga walaalkay iga sii dhacay marka waxa kan aniga ma rabo وفرصة قاعدتان كل ما نقول يعني تركيا سجل لابنا إسلامي حقا الماء يجوجا وحاجة كباب كيجان قدنا ولا مقايد ده حوج كيجان كشة قيصر ولا هل كاسة سجل لابنا هنتدان ضدك مساكين تأهلوا قيبيو ضدك الدنيا تا مساكين تا انت راشين لوجو قضي wax loogu qabtay hay'adka idaasiga ama gargaarka ku wareejiyay hantidii waa la gaday guriga waa la gaday ninkii saasoo ku wareejiyay wixii uu iska laabtay Qaasim Ilaahay aan u toobad keenaa uu yiri dambiga aan galay Ilaahay ha iga cafiyo ninkii Anas ahaa iyo hooyadiisna meeshii loo tilmaamay qabrigii in lagu aasay Saalax ayay tageen qabrigii la fogay meedkii meesha la fiiyaa laga soo bixiyay DNA laga qaaday inuu Saalax yaa la ogaaday Allah ya raxma Saalaxna halkaas ku tagay
marka qisadii cajiibka ahayd ee la yaabka lahayd toddobaadkan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. fadlan wixii fakaraya aragti idinkaga baxay iyo cibro qaadasho sidii awalba aad usoo qori jirteen noogu soo qora. hana iloobinina inaad like garaysaan oo aad share garaysaan barnaamijka oo aad markaa intaan aan gaarin qisadan iyaguna ay markaa gaarto. almaalul xaraam qisadii ahayd ee uu qoray qoraaga reer kuwait abu dalaal alxamraani intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa toddobaadkan. inta aan mar kale kulmayno iyo qisooyin kale oo cajiiba waan idiin soo aruurin doono. nabadgelyo.